السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي soo dhawaada kusoo dhawaada channelkayga Nahyaan Somali channelka hadda ku cusubtahay subscribe saaro beelkan aan ka dhigo si aad u noqotid daawada ugu horeeyo sidoo kale video ii share garee ehelka asxaabtaada la wadaag mahadsanid soo dhawaada maanta waxaa idin wadaa videoga ay sugayseen aan idin dhahay next video insha Allah idin soo gelin doona marka waa kana qaybta koowaad idin soo galiyay marka qaybta labaad next video ka soo dhigaya insha Allah marka ila socda insha Allah ugu horeyn guriga rabaa inaan nadiifiyo inta aan alaabta dhigin waxaan rabaa in aan nadiifiyo waa soo dhaqaya waa soo nadiifinaya waa ila arki doontaan kuraastii miisaskii wixii dhan waa soo jiiday kal ilaa waa u dhaqi rabaa ma fahanteen hadda soo jeedaan meeshaan dhaqay maana dhinac kale u sikinaya kadibna waa dhigaya marka hadda waxaa sameynaa miisaskii tirtiraya soo jeedaan miisaskii nadiifinaya wasaq malaan guri waxa joogay malahan laguma soo hooyanaynin ma fahanteen guri lama seexanaynin laakiin boor iyo waxba daaqadaha ka soo galgalayo warka boorboorkii ka tirtiraya ka nadiifinaya ka jajafaya marka ila socda insha Allah miisaskii soo tirtirtada u jeedaan kuraasta hor gadaal u jiidaya daalka adduunka shaqaa ku dhahay marka kuraasta dhanka aan soo jiiday hoostooda dhaqay midka marka dhaqo dhanka kale kuraasta u jiidaya fadhiga yar yani qolka fadhiga xooga wax yar cariiri marka dhanka marka dhaqo kuraasta dhankana u riixay dhanka kale soo dhaqaysa sameynay waa u jeedaan hadda wali shaqadii wadaa ila socda insha Allah idinkana indhiina idin macalin saa wax u qabtay ila arka insha Allah hadda ugu dambeyn guriga waa soo dhaqay waxaa dhigayaa fadhiga roog soo u jeedaan Aisha yirisay Aisha ay caawinaysa iyada kaamirada iyo haysa video iyo duubaysay marka shaqadan waxa ay ka qabanayso faanteen cabaar markii kaamirada ay hayso istaajiso ila shaqaynaysa iyadana marka miiskan soo dhigay hadda maxaa la dhahaa roogiya soo dhigay miisaskiya soo saaray kadib hadda hawsha noo sii socod saa u jeedaan marka waa kas fadhiga saas soo dhaqay guriga hadda meesha waxa igu diyaarsan wixii aan decorationka u isticmaal lahaay ama sharaxaada wixii aan isticmaal lahaa ii saaran miiska igu diyaarsan inta ku soo dhaweystay hadda marka sharaxaadii aan bilaabanayso ila socda insha Allah hadda waxa ka bilaabaya miiska oo standard TV-ga ka bilaabaya standard TV-ga ama miiska TV-ga hadda saa u taqaanaan marka baalkaas soo saaray hadda u jeedaan kadib wixii kale aan decorationka ugu talagalay soo saaraya ila socda insha Allah marka hadda waxa soo qaadanaya alaabihii aan
barkimaha fadhiga rabaa inaan ku sharaxa ayagana barkimo fadhiga way wataa laakiin afartoo xabo oo sharaxaad ah kusoo daray hadda waxaa soo saaraya miiska alaabtii aan rabay inaan soo saaro marka ila socda insha Allah miiska TV kana soo saaraya kadibna wixii kale oo la kor saaraya soo saaraya marka ila socda insha Allah wax yar oo iska easy soo sameeyay fahanteen wax yar oo iska simple ah waaye simple waxa oo yani sas u badan ma ka dhigin sharaxaada wax yar oo iska qafiif ah ka dhigay marka doo ujeeda miiska saas soo saaray alaabtiisa haddana waxa aadaynaa dhankaas kale fadhiga barkimaha rabaa inaan soo saaro kuraasta barkimo way wataan kuraasta sida hore u aragteen laakiin afarta xabo ana sharaxaad u soo gaday gray oo light miya gray dark miya kuwa had soo gaday inay dark yihiin ila tahay ani kuwa hore ay light yihiin marka kuwaas barkimahaas u soo gaday inaan dhex geliyo midkan saddexda kursi ahna saddexdaas barkimaha soo saaray midkan kalena ayagana saddexdana soo saaray kuwaasna afartaas soo saaray kan saddexda kursi ah labadan yar yar kuwa roundiga u soo gaday ayagana kuwana soo saaraya ayagana gray oo dhaag waaye kuwan dambe aan soo gaday waxa dhan gray light dad laga dhigo musku soo baxaya marka xooga kalarka inuu wax yar ka baxsanaada ka dhigay marka miiska kalena kana miiska kafeega ama miiska caadiga fadhiga ah hadba soo taqaanaan marka asnin kuwana ku soo decoration gareynaya buugaagtan oo soo saaraya marka ila socda insha Allah marka labadaas buug ee waxaan soo saaraya baashan kuushan tusbax la iska dheh baashan tusbax camal haddii aad rabto saan dhirir u saaran kartaa qof walba soo jecel yahay u saaran karaa laakiin ani sidaana ila qurux badnaatay saanaana u saaray ugu dambeyn guriga waa kaas fadhiga sidaas oo soo hagaajiyay sidaas oo ku soo baxay marka videoga qaybta kale jiifka iyo fadhiga iyo inaan isku soo daraarabay laakiin video too much uu noqday ma fahanteen 32 daqiiqo noqday weli aasi speed ku furay wax walba ku sameeyay marka waxa is dhahay laba qayb ka dhig qaybtan u geli hadda qaybta kale next video uga dhig insha Allah qaybta fadhiga hadda idin soo geliyay fadhiga sida u sharaxay qaybta dambana qolka jiifka insha Allah idin soo gelin doonaa labada video ina hal mar soo geliya rabay laakiin ay suurta gali weysay videoga aad u dheeraaday marka waxa idinkana ku caajisaysiin waxa ka fiican wax yar oo aad idinkoo ma aragtay caajisin daawataan videoga halkaas hadda qaybta fadhiga la idin soo geliyay marka halkaas ka faa'iideysta insha Allah video like share igu badiyo commentiga dhiirigelintana waa xageena waa codsi amar maahan dhiirigeliyo insha Allah anigana waa dadaalaya oo jeedaan inta juhdi aan gelinayo wallahi shaqada marka qabanayso wax dhib ma lahan laakiin hadii aad dhahdo video waa duwa waana shaqeynaa inta ka go'ays ma ogid time ay qaadanay waqti dheer shaqada waqti yar ku qaban lahayd waxa ku qaadanay waqtigii 3 jibaarkiis camal iska dareemi kartaan kulay qofkii wax fahmayo oo fahmi karaa marka insha Allah idinkana hal idinka arkan fahanteen video like igu badiya share gareeya commentiga dhiirigelintana waa xageena kan hadda fadhiga sidaan u soo hagaajiyo hadda waxa rabaa inaan hagaajiyo dhaxda rabaa inaan roog dheer dhigo meesha dhaxda oo fadhiga iyo albaabka laga soo galay guriga u dhaxaysa rabaa inaan roog dhigo roog dheer rabaa inaan dhigo asagana waa ila arki doontaan insha Allah sheekada fadhiga hadda saan ku soo dhamaatay marka kana fadhigiisana u soo kala kaciyay dalka adduunka ku dhahay maalmahaas waa u daalay weligay uma daalin dhima lahan wax dalka waxa iga muhiimsan farxadda walaashay hambaliyada iyo ducada waa xageena igu soo duceeya ilaahay gurki lagu waaro ayay awow lagu noqdo Allah ka dhigo marka ducada hambaliyada waa xageena fadhiga sheekadiisana ku soo dhamaatay hadda fadhiga waa ka baxaynaa waxa aadi doonaa maxaa la dhahaa dhaxda aadi doonaa dhaxda soo hagaajinaya marka ila socda insha Allah
hadda dhaxdiga ujeedaan in waxaan soo dhigayaa roogan dheera dhigayaa saa ujeedaan rooga albaabka laga soo galayo guriga ilaa iyo fadhiga inta u dhaxayso waay roogan dheer baalkan kabahana haday marka rooga dhigaya meesha ka leexiyay marka hadda gadaal u dhigay meesha hore la soo marsiinaa darbiga marsiiyay gadaal ka arka waa toosii laakiin video waa gabagabo video tan next video insha Allah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh